odayaal ka yimid deegaanada Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegay in gaari ay lahaayeen looga haysto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug waxaana maamulka Galmudug ugu baaqeen in gaarigaasi loo soo gacan galiyo odayaasha ayaa sheegay in gaariga iyo ninkii soo dhacaba ay gacanta ku hayaan maamulka degmada Dhuusamareeb gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee caasimadda Galmudug mudane Cabdi Xaashi Caroole oo ay sheegeen inuu dadaal badan ku bixiyay sidii gaarigaasi iyo shakhsiyaadkii soo dhacaba gacanta lagu soo dhigi lahaa waxayna sheegeen in hadda gaariga iyo ninkii soo dhacaba ay ku xiran yihiin saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareeb iyagoona maamulka degmada Dhuusamareeb iyo kan sare ee Galmudug ugu baaqay in gaarigaasi lagu wareejiyo waa kuwan odayaasha oo arrimahaasi ka hadlaya anagu waxaanu nahay ergo ka timi Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer magaalada Burco waxaanu hadda joognaa oo aanu ka hadlaynaa magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug waxaanu u soconay hantina laga dhacay oo gaari Cabdi Bilo ah gaarigaas oo u dhacay Daahir Xasan Faray ninka la yiraahdo markii aanu halkan nimi gudoomiye ku-xigeenka gobolka ayaanu u nimi hawshaasi waxaan ayuu wax uga qabtay gaarigii uu soo qabtay oo laga sii iibiyay qabiil kale isagiina waa la soo xiray xabsiga ayuu ku jiraa gaarigiina waxa haya gudoomiye Cabdi Xaashi waxaanu markaa ka codsanaynaa maamulka Galmudug ka shaqeynaya ilaa madaxweyne ku-xigeenka iyo mas'uuliyiinta kaleba waxaanu ka codsanaynaa hantidayadii in la siiyo waxa la leeyahay wax anaga deena laga xirayaa ma jirto nin iyo wixiina waxa ka dhaxeeya aragtida dadka wax kala iibsaday ee gaariga kala iibsaday iyaga isgaranaya iyaga isku guriya iyaga hay isu raaceen wixii ay kala qaateen laakiin waxaanu anagu codsanaynaa in la siiyo gaariga iyagii waxaanu imika joognay 18 habeen baanu magaalada u hooyanaynay gaariga warkiisu wuxuu ku cad yahay dad badan oo mas'uuliyiina ayaa 8 bilood imika muddo imika laga joogo 2 bilood hawshiisa galay gaarigaas waxa uu ninkaas watay 8 bilood waxa uu ku xiran yahay sharci ayuu ku xiran yahay sharci darro kuma xilna waxaan u xiran yahay hantida uu lunsaday laga dhacay ee sii iibiyay gacantii labaad iyo tii saddexaad ba maraysa cid allaaliya cid kale wax laga saarayaa ma jirto waxaanu markaa codsanaynaa saasaanu codsanaynaa in si degdega loogu fududeeyo oo hantideedii naloo siiyo oo naloo diro ayaanu ka codsanaynaa madaxweynaha dowladda Galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo jananada iyo wasiirada iyo xildhibaanadaba waxaanu ka codsanaynaa waranagu dad qariib baanu nahay dad waxoodii doonaya baanu nahay cidna ku aflagaadoon mayno cidna caay mayno cidna maagi mayno waxaanu leenahay hana la raaciyo waxa yagii ayaanu leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi Daahir Maxamuud Cabdi Daahir yare wararka STN TV Dhuusamareeb